maamulka dawladda hoose degmada Berbera ayaa maanta 160 qoys oo kamid ah danyarta xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera ku wareegtay guriyo laga dhisay xaafadda magaalada Cad oo dawladda hoose degmada Berbera gacanta ku haysay munaasabadan waxa ka soo qayb galay xogayaha fulinta dawladda hoose duqa degmada Berbera ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdikariin Aadan Siciid oo halkaasi ka sheegay tirada guriyaha laga dhisay xaafadda magaalada Cad waqti nasiib lagu qaadan doono فيسك لبعضنا وتردينا كحكتة إدمان أو مدة بلود بدو هو ده أنت هذا اللون ما يشتري دونه يجدو يجعل الله كله رئيسين دونه سيدا يبختي نسيب كم كوكلا قاتان وحنوم علينا يا بني آدم كعدالة بعد ذا ما ملك دقمة ده وجوه رياضو كمجالدو ده البدن بوجو قلي إنه لما تنهرها كتشوجنو جديد حافظة يقول هالكتشوجا وجود كستابة أي ليس كرئيسنا يسوع عدة قريها قارسي قاد أوهشة وحنا ذكر دردار مينا هذا دولة هوسنا هاي تذلك يجا إذا كلام هاريتونا وحلا بلا بيجرينتي لير كي بنشيري دونا سكول كي يو هو هاي سلقي يا مساجد كي MCH كي كرام كده نذكر يعني أنت بهرولها درنت بايدين بلا ميتونتا oo waxda arrimaha in arrimaha bulshada qaybta dirintu ay idin keenay doontarti waxa la idinka doonayaa marka hore inaad guryaha digtaan oo cid walba waxa lagu xisaabtan doonaa deegaanka iyo tegitaanka ay tagaan waxa kale oo aan idinka rabnaa inaad dadaashaan oo aan meesha nolol ka abuurno sidii xafadii idinka horeysay degtay dhamaanteena haddii isku duubnaano oo inoo suurtagelaysaa inaynu noloshan kor u qaadno waxaan qabnaa intiina halkiina fadhida inay tahay intii ugu mudnayd iyadoo qaar badan oo mudana waqti nasiib ku reebay insha Allah iyagana aanu si wanaagsan u rajayn doono marka balanteenu waxa weeyaan in wada shaqeyno ilaahayna hawlaayna fudiyo aad iyo aad baa mahadsantihiin sida cadaaladna mar labaad u qaybin doonaa idinkoo halka ka arkaya sidii markii hore lagu qancay waxaan qabaa in lagu qanci doono wax badan ma kala dambeyneen aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh يمكن واحد كسود دوين يا قدوميها كلها دقائق أنا دقائق مجالده مستر عبد الشكور عندنا أدب ومهسنتين السلام عليكم قدومي سودو بسم الله الرحمن الرحيم مركز الله هذا الكلام بعده وحوش من بلعبنا واحد تعلم أنا بقدر عن نسير هذا كل الجوش نسعنا وقريه اللي تكون ريتشيو labada qodob aan sheegay oo qodobka koobaad weeye degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa sheegay in si cadaalad u xaq soori doonaan dadkan danyarta ee ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera daba socda halkan mulkiilaha ka bilaabmaysa imika nambarka imika qaadanaysa waa mulkiil marka waa inaad imika gasho iyo inaad marka labaad gasho laakiin imika already wada haysataa qolku waa ka weey nasiibkan waxa keenaya haddaan doonayno cidayada iyo dadkaygan gaar u siin lahayn intaan jecelnahay intaan qofku ku ixtiraaminaan siin lahayn dhammaantiin bay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala si aan u badbaadno ubadkaygu badbaadaan idinoo badbaadaan cadaalad baan deeqnaa waxaan sii waa cadaalad mar kale 163ka 160ka haddana halka nasiibka lagu kala qaato guriga qoniyo wajigii koobaad wajiga labaadna la bilaabo doono dhawaan sida ay mas'uuliyiinta dawladda hoose degmada Berbera sheegeen waa Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xeefo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil